مالك ومالك 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 مسك حديد دونيدو ملاسن موجة هيدا مسك حديد دونيدو ملاسن موجة هيدا كلاميرتي معني سيماركي خرسونا كلاميرتي معني سيماركي خرسونا ومصباحي كاهيسو مانتا ومعيني مبدئي كميري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هل كانوا إسكولك لحية لواتنك تشون سكندري سكول waxaynu qaadanaynaa maanta waa 10 keenii taxanaha ahaa ee luqadda Carabiga ee inoo socday waliba waa duruustii fasalada koobaad aan ugu talagalnay luqadda Carabiga si ay ardayda uga faa'iideystaan iyagoo guryahooda jooga maadaama ay noqotay aqoontii in ay imika xanuunadan jira awgeed in lagu qaato aqalada marka 10kani waa luqadii Carabiga waa darsi aan ugu talagalnay foowanada amba galaaska koobaad ee dugsiga sare waxaynu qaadanaynaa darsul min duruusi nusuus 10 kamida 10radeennii nusuusta ahaa ee taxanaha inoo ahaa aynu qaadanaynay موضوع aynu qaadanayna waxa uu ku saabsan yahay الديك والثعلب وموضوع aynu kaga waramayno diiga iyo dacawga sideedna hadiya jeer waxaynu garanaynaa labadan xayawaan midna uu yahay duurjoog midna uu yahay dadjoog mid uu inagayna la nool yahay nimcooleyda ilaahayna siiyay oo kamid yahay midna uu yahay duurjoog xayawaanaadka wax ugaarsada ayaa uu ku saabsan yahay darsiga aynu maanta qaadanayno haddii ilaahay ilaado sababta hadaba mawduucan aynu qaadanayna waxa ay tahay inaynu ogaano diiga muxuu caan ku yahay dacawguna muxuu caan ku yahay waxaynu garanaynaa diigu inuu yahay xayawaan aad u qiimo badan xagga nolosha dhexdeena xayawaanka kaliya ee inoo tilmaama hadba saacadaha aynu ku jirno cibaadadeena dacawgana waxaynu garanaynaa inuu yahay xayawaan ku caan baxay xagga qiyaamada ayuu aad iyo aad ugu caan yahay marka mawduucani waxa uu ku saabsan yahay qof daacada iyo qof khiyaamo wata ayuu ku saabsan yahay mawduucan waxa iska leh abwaanka loo yaqaan li Ahmed Shawqi ninka la yiraahdo Ahmed Shawqi ayaa iska leh gabaygan amba naskan aynu maanta qaadanayno intaynan 10keena inaan u guda galin waxaynu isku dayaynaa marka koobaad inaynu wax ka qaadano 3 su'aalood oo ku saabsan oo horudhaca oo 10ka kamid ah su'aalaha ardayga la weydiin doono hadduu ilaahay ilaado su'aasha koobaad waxay noqonaysaa man qaa'ilu nas gabaygan kuma tiriyay gabaygan ayaa iska leh 10kan aynu maanta qaadanayno kuma ayaa tiriyay abwaanka tiriyay waa kuma jawaabtu waxay noqonaysaa qaa'ilu nas gabaygan cidda tirisay abwaanka tiriyay waxa uu yahay ashaacir abwaanka loo yaqaano Ahmed Shawqi ayaa iska leh gabaygan isaga ah su'aasha labaad ee ku iman karaysa darsigan aynu qaadanayno waxa uu yahay
maadaa tacrifu canhu maadaama aad garatay abwaanka gabaygan tiriyey magaciisa waxaa iminkana su-aasha lagaa weydiinayaa waxa ay tahay maxaad aqoon u leedahay maxaad ka taqaanaa histarigiisa aqoon maxaad u leedahay jawaabtaadu waxa ay noqonaysaa innahu shaacirun waa abwaan misray asliyadiisu uu ka soo jeedo abwaan reer masara wuxuu ka mid yahay min ashhuri shucaraa abwaanada caanka ah ee fi lcasri alxadiid casrigii dambe abwaanadii soo shaac baxay ayuu ka mid yahay abwaankan isaga ah su-aasha kale ee dersiga ku iman karaysa amba ardayga la weydiin doonaa waxa ay noqon doontaa maa munaasabatu nas waa maxay munaasabadda uu ka warramaya gabaygan isaga ah jawaabtaadu waxay noqonaysaa araada shaacir abwaanku waxa uu doonay an yataxadaa inuu ka warramo can khidcati thaclabi khiyaamada uu isticmaalo dacwga khiyaamadiisa inuu ka warramo iyo wa damaca uu damaaciyey fii akli diig inuu cuno diiggan isaga ah iyo qaabkii uu ku cuni lahaa iyo farsamadeedii fakataba nas dabadeedna abwaanku waxa uu qoray tixdii ayuu qoray idan waxa halkaa inooga cad diig la doonayo in la khiyaameeyo dacaw oo doonaya inuu diiggan khiyaameeyo sideeda markaynu labadan xayawaan soo qaadannay waxa uu abwaanku doonayaa inuu ka warramo shakhsiga khaa'inka ah ee doonaya ummaddiisa inuu khiyaameeyo hadba shaarka uu u soo xidhan karayo iyo nooca uu ku iman karayo hadduu doono sometime wuxuu isku dayayaa khaa'inku inuu kuu soo xidho shaadh tilmaamaya shaadh diineed inuu kuu soo qaato oo uu kaa soo galo xagga diinta mararka qaar wuxuu kuu soo xidhanayaa shaar siyaasadeed oo wuxuu kuu soo gelayaa xaggii dowladda isagoo doonaya markaa inuu ummadda khiyaameeyo lugooyo dabadeedna wuxuu isaga dhigayaa qof wanaagsan inuu yahay ummaddii wax u qabanaya waxaynu ka fahmaynaa qodobadaasoo dhan mowduuceennan addiig wathaclab haddaynu gudagalno annas tixdii uu abwaanku uu ku tilmaamayey qodobada noocana qaala shaacir abwaanku waxa uu tilmaamay tixda koobaad baraza athaclabu yowman fii shicaari alwaacidiina baraza waxa soo baxay oo isa soo bandhigay athaclabu dacaw ayaa soo baxay yowman maalin maalmaha ka mida ayuu soo baxay oo muxuu u soo baxay qaabkeebuusa ku soo baxay fii shicaar isaga oo sita astaamo iyo shicaar muujinaya alwaacidiina isaga oo dadkii doonaya inuu wacyigeliyo ayuu soo baxay isagoo wadaad iska soo dhigay khamiis soo xidhay duub weyn soo xidhay soo duubtay ayuu ummaddii ku soo baxay muujisanaya doonaya inuu ummadda wacyigeliyo baraza waxaa soo shaac baxay oo soo baxay athaclabu dacaw ayaa soo baxay yowman maalin fii shicaar isagoo muujisanaya alwaacidiina wacyigelin ummadda doonaya inuu wax u sheego tixda labaad abwaanku waxa uu tilmaamaya famashaa fi lardi dhulkii ayuu socday yahdii isagoo dadka hanuuninaya oo wax u sheegaya ayuu magaaladii dhex qaaday wayasubu isaga oo weliba caayaya almaakiriina kuwa khiyaamoolayaasha dhagarqabayaasha isaga oo dhaleecaynaya oo wax ka sheegaya ayuu soo maray wuxuu ugu talagalay isaga oo muujisanaya inuu yahay qof wanaagsan ummaddii wacyigelinaya
wanaagga u sheegaya ayuu dhulkii maraya isagoo waliba dhaleecaynaya mid kasta oo khaayina oo dhagarqaba ah tixda saddexaad abwaanku waxa uu tilmaamayaa wayaquulu waxa uu leeyahay hadda waa dacwo ogow qofka sidaa leh alxamdu lilaah ilaahay baa mahadle ilaaha alcaalamiina allahaa soo abuuray caalamka oo dhani allahaa soo caabudaan allaha ayaa mahad iska leh ilaahay baa mahad iska leh intuu ummaddii soo hor istaagay waa intaan imika kuu soo qaato khamiis iyo cimaamad iyo duub weyn anigoo aan doonaya inaan adiga lugooyadaada iyo khiyaamadaada iyo dhagartaada anoo doonaya inaan ka shaqeeyo ayaan kuu soo xidhay dharka lagu yaqaano dadka wal wanaagsan dabadeedna ku idhaahdaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin erayada ugu horraysa ee aan soo jeediyey oo ah mahad celin alla aynu u mahadnaqayno marka aan ku hor dhigo dee meelaad ka hadashaaba ma taallo dacwgii haddaba waxa uu tilmaamay wayaquulu alxamdu lilaah waxa uu leeyahay ilaahay baa mahad iska leh ilaaha alcaalamiina caalamka oo dhan rabbiga ay caabudaan allaha ayaa mahad iska leh tixda afraad waxa uu yidhi dacwgii khiyaamada watay yaa cibaadallaah addoommadii ilaahayow tuubuu towbad keena fa huwa towbadda aad la timaadaani kahfu taa'ibiina waa dhufayskii iyo godkii ay gabaadkii ay gelayeen dadka ilaahay u soo noqdaa waa halka ay ku badbaadaane war ilaahay u toobad keena khaayin baa ku leh ilaahay u soo noqo ilaahay dembi dhaaf weydiiso halka waxaynu ku badbaadaynaa inaynu ilaahay u toobad keenno inaynu iscafinno inaynu wada jir ku shaqayno wanaag buu muujisinaya marnaba ku odhan maayo qofka khaayinka ah anigu khaayin baan ahay balse wuxuu odhanayaa ummadda ayaan wax taraya waxbaan idin qabanaya waan idin casaynaya anaa wax walba hagaajinaya wamaca daalika waxa uu doonayaa haddana inuu idin khiyaameeyo oo uu xagga kale idinku rogo tixda shanaad dacwgii waxa uu yidhi waashiduu fi اطayri wuxuu la hadlayaa ummaddii waa khaayinkii waashiduu ka dheeraada oo ka fogaada fi اطayri war shimbiraha in la cunaa iyaduna ma wanaagsanee shimbir cunista ka dheeraada ina alcaysha maxaa yeelay noloshu waxay ku qiimo badan tahay caysha zaahidiina dadka zaahidiinta ah nolosha ay ku nool yihiin taasaa wanaagsane noloshan raaxada ahee aad raaxaysanaysaane qofka bani aadamka ah uu dhinac walba u ridayo ma qiimo badna qofka ilaahay garanaya nolosha uu ku nool yahay nolosha taa aynu qaadanno oo shimbirahan iyo digaaggan iyo jikinnadan iyo qalabbadan aynu cunayno wardaaya buuli markaa wuxuu iska dhigayaa ummaddii uu u sharxayaa inuu nin wanaagsan oo adduunyadii ka zaahiday inuu yahay diiggiina wuxuu isaga dhigayaa nin ka shaqaynaya wanaaggiisa markaa waa ummaddii buu isaga dhigayaa inuu yahay nin wanaaggiisii wadaa waashiduu fi اطayri digaagga iyo shimbiraha ka fogaada ina alcaysha nolosha waxa ay tahay cayshu zaahidiin nolosha dadka adduunyada ka fogaada ka zaahida noloshooda taa ayaa qiimo badan tixda lixaad abwaanku waxa uu tilmaamaya isagoo ka warramaya khiyaamada qofka khaayinka ah oo tacbiir uu diigga iyo dacawga uu soo qaatay waxa uu tilmaamay wa atlubu waxaad ka dalbataan diigga waxaad ka codsataan yu'adin haynoo eedaamo dadow maadaama aynu diiggii cunistiisii shimbiraha aynu mamnuucnay aynu iska daynay diiggu ha eedaamo halla codsigaa dhiiba oo goormuu inoo eedaamaya ma duhurkii iyo casarkii may lisalaati subxi
salaada subax ha eedaamo fiina inaga dhexdeena diiga la soo daayo salaada subax dadka u toosiyo oo ha eedaamo qodobka iyada ayuu liibay shacabkii iyo dadweynihii iyo ummadii isagoo doonaya dadkan sidii shayga faa'iidada iyaga u leh sidoo uga dhex saari lahaa diigan siday ugu intifaaci lahaayeen isagoo doonaya inuu ka cuno ayuu qodobkaas soo jeediyey tixda toddobaad waxa uu tilmaamay faata ad-diig diigii baa yimid rasuulun ergaygii loo diray ay dadku u direen ayaa u yimid rasuulkaasoo ka socda min imaamin naasikiina imaamkii alla ka cabsiga hogaamiyaha ka ahaa oo markaa wuxuu sheegtay taytal khaayinkii inuu yahay ummadda hormoodkeeda iyo kii danahooda waday imaamu naasikiin ayaa ku yeedhaya baa la yidhi haddaynu halkaa tixda aynu maanta halkaa aynu ku joojinno bal aynu isku dayno inaynu qaadanno kelimaadka ku jira tixda iyada ah baraza micnaheedu waxa weeye dahara uu soo baxay shicaarun micnaheedu waxa uu noqonayaa madharun waa muuqaal almaakiriina micnaheedu waxa weeyaan almukhaadiciin waa kuwa wax khiyaameeya kahful micnaheedu waxa uu noqonayaa malja waa gabaadka iyo meesha loo noqdo imaam micnaheedu waxa uu noqonayaa imaam almutacabbidiin imaam alnaasikiin micnaheedu waxa uu noqday imaamka dadka allaha ka cabsado hormuudka u ah sharxul abyaad haddaynu soo qaadanno sharaxa uu tixdani ay leedahay tixda koobaad ee sharaxeeda waxa uu noqday dahara thaclabu yowman dacwa ayaa maalin soo baxay cala annaas dadka ayuu ku soo baxay murtadiyan isagoo isu muujinaya qanaaca alwaacidiin dadka doonaya inuu ku qanciyo wacyigelin iyo waano laba famashaa fi lardi dhulkii ayuu maray yahdi annaas isagoo dadka wax u sheegaya oo hanuuninaya wayalcanu isagoo caayaya kulla almaakir mid kasta oo maakir ah oo khaayin ah isagoo lacnadaya saddex wayaquulu waxa uu yidhi alxamdu lilaah ilaahay baa mahad iska leh macbuud alcaalamiin allaha caalamka ay wada caabudaan afar wayaquulu waxa uu yidhi yaa khalqa allah ereyadiis waxaa ka mid ahayd addoommadii ilaahayow tuubuu toobadkeena warjicuu ila allah ilaahayna u soo laabta fa cibaadatahu cibaadada allah aad caabudaysaan wa maxabbatahu iyo kalgacaylkaad ilaahay jeceshihiin hiya iyadu waxa weeye milaadu taa'ibiin dadka toobadda keena waa waxa lagu yaqaano weeye iyo halka ay u laabtaan shan yatlubu athaclabu dacwgii wuxuu ka dalbaday min annaasi dadkii wuxuu ka codsaday an yaciishuu inay noolaadaan xayaata zuhdi nolol adduunye jacayl ay iska saaraan oo aakhiro ay jeclaadaan nolosheed ayuu ka dalbaday waddaliilu calaa daalik qodobkaana wuxuu u cuskaday alimtinaacu in layska daayo can akli الطayri in la cuno shimbiraha iyo digaagga tixda lixaad waa an yaطlubuu addiig waxa uu ka dalbaday diigguna an yu'adina inuu eedaamo lisalaati الصubxi salaada subax fiihim iyaga dhexdooda ta toddobaad fajaa'a addiig ila addiig diiggii waxa u yimid rasuulun ninkii uu soo diray min imaami الnaasikiin ninkii sheeganayay inuu yahay imaamkii alla ka cabsiga casharkeennaasi halkaas waa inoogu joogo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu مالك